dhextaalka iyo toddobaadka aniguna waa libax barqiye waxaan idin soo gaarsiin doonaa wararkii soo dhacay toddobaadkani. Xiriirkii u dhaxeeyay Somaliland iyo Soomaaliya ayaa muddo dheer ahaa mid muran iyo kala qaybsanaan uu ka dhex jiray. Somaliland waxa ay ku dhawaaqday inay madax bannaan tahay sanadkii 1991 kadib markii uu burburay maamulkii Soomaaliya. Tan iyo xilligaas Somaliland waxay isku dayday inay hesho aqoonsi caalami ah, balse Soomaaliya waxa ay u aragtaa inay weli ka tirsan tahay dhulka Soomaaliya, taasoo keentay khilaaf iyo ismariwaa siyaasadeed. Haddaba dagaal siyaasadeed oo xoogan ayaa dhex maray labada dhinac, iyadoo labada maamul ay ku kala aragti duwan yihiin arrimaha madax bannaanida iyo midnimada Soomaaliya. Soomaaliya waxa ay ku adkaysanaysaa in la ilaaliyo midnimada qaranka, halka Somalilandna ay doonayso in si buuxda loo aqoonsado madax bannaanideeda. Sidoo kale waxaa jiray sanadahan dambe isku dayo dhexdhexaadin oo ay sameeyeen qaar ka mid ah dowladaha ururada caalamiga ah si xal loogu helo khilaafka, laakiin ilaa hadda wax natiijo ah oo cad lagama gaarin. Isku dayadii ugu dambeeyay ee wada xaajoodka ahaa kuwaas oo badanaa ku dhammaaday fashil, iyadoo labada dhinac ay isku hayaan qodobo muhiim ah sida masiirka Somaliland iyo ka mid ahaanshaha Soomaaliya. Intaas waxaa dheer, waxaa jira arrimo kale oo dhaqaalaha iyo ammaanka la xiriira, taasoo khilaafka uga sii dari karta, gaar ahaan marka la eego taageerada maalgashiga caalamiga ah ee Somaliland iyo Soomaaliya. Haddaba Falay Dubay waxa ay magacii Somaliland ka saartay shabakada tigidhada iyo safarada ee khadka tooska ah kadib markii dowladda federaalka ee Soomaaliya ay dalbatay in magacyada maamul goboleedyada aan si madax bannaan looga isticmaali karin shabakadaha shirkadaha duulimaadyada caalamiga ah. Dowladda Soomaaliya waxa ay shirkadaha caalamiga ah ugu baaqday inay ka fogaadaan aqoonsiga Somaliland maadaama aysan ahayn dal si rasmi ah loo aqoonsan yahay. Tallaabadan ayaa qayb ka ahayd dadaalka dowladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan midnimada iyo ilaalinta xuduudaha Soomaaliya. Duulimaadyada Hargeysa sababo la xiriira amarka dowladda Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya waxa ay ku cadaadisay shirkadaha Falay Dubay iyo Ethiopia Airlines inay ka saaraan magaca Somaliland oo ay u bedelaan magacyada saxda ah ee magaalooyinka dalka Soomaaliya sida Hargeysa iyo Muqdisho oo kale, sababtoo ah Somaliland weli si rasmi ah looma aqoonsan. Dhinaca kale, khilaafka siyaasadeed iyo maamulka hawada ee u dhaxeeyay Somaliland iyo Soomaaliya ayaa ka sii daray, kaas oo jahawareer gelisay howlihii duulimaadyada caalamiga ahaa, gaar ahaan kuwa ku socda Hargeysa. Halkaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa warkii ina soo gaaray. La socda kuwa dambe.